Daawadayaal warkaad maqashaanba warkii kale ka daran gabdhaha Soomaaliyeed oo indhaweytaba heesta lagu soo karbaashiyay ayaa midaba midii kale ilaa way ka waalan tahay. Gabdhihii Soomaaliyeed ee heestan lagu bacayay laguna karbaashiyay ayaa waxay isaga soo duubeen muuqaalo dhaafay iyagoo barida ruuxaya iyo sidoo kale dhaqanno xunxun sameynaya. Arrintaasi ayaa waxay sabab u tahay in heestii lagu soo karbaashay ay gaarsiiyeen meel kasta oo dunidan ka tirsan. Haddaba muuqaalkan qarxay iyo sidoo kale heestan sababta ay quraxday ayaa waxaa lagu tilmaamay in gabdhihii ugu faraha badnaa ee Soomaaliyeed ay heestan reaction kala duwan iyagoo markaasi ku jaasaya ku niikinaya waxyaabo kala duwan ku sameynaya. Arrintaasi ayaa waxaa loo sababeynaya inay tahay in iyaga qudhoodu ay ka qayb qaateen faafinta heestu lagu maagayay hablahaasi. Haddaba hablaha Soomaaliyeed hadda aad arkaysaan waa mid ka mid ah platformada social media gaar ahaan TikTok-ta. Waxaan booqanay mid ka mid ah heesaha oo markaasi laga sameeyay reaction kala duwan oo waxaad arkaysaanba 80% waa dumar. Sababta ugu weyn ay markaasi sameynayaan waa ku xumeynayaan gabdhihii Soomaaliyeed ee lagu karbaashay ay ka mid ahayd walax Miss Wall iyo sidoo kale Fartuun Balbalaarka iyo Maariish. Arrintan ayaa waxay tahay in haddii gabdhahaasi Soomaaliyeed ay gabdhahan kale Soomaaliyeed iyaguna ka xun yihiin in ay markaasi iska deyn lahaayeen. Dhanka kale social media oo dhan ayaa dagaal ka taagan yahay la xiriira in fanaaniinta soo qaaday heestan ee lagu kala magacaabo Lil Balil iyo sidoo kale CK oo YouTuber ah ayaa waxay markaasi dagaal culus ku qaadeen ninka lagu magacaabo Ayub markaasi Carlo oo ay madaxiisa ku soo dareen. Dhanka kalena waxaa dagaal culus ku soo qaaday Shiino Culay oo isaguna yiri waryaada kaxshooda hablaha Soomaaliyeed inkastoo isaga qudhisa markaasi ay dagaal culus isku hayaan oo la xiriira inuu isaga qudhisuna uu gabadh uu manaal la yiraahdo oo qabo uu markaasi ka difaacayo markaasi laadarka CK ee horumarkayga laga xun yahay. Arrintan si weyn ay baraha bulshada saameyn weyn ugu yeelatay waana arrin cajiib ah oo dadyo fara badan oo Soomaaliyeed dhagahooda in badan buux dhaafisay. Balse ka warbaahin ahaan sababta ugu weyn aanu tuumayna ayaa waxay tahay in heestan hablahan lagu soo daray ay tahay khalad in lagu soo daro gabdho Soomaaliyeed oo sharaf iyo cisi mudan. Daawadayaal halkan aad daawanaysaan waa warbaahinta Hogol News. Aniguna waxaan ahay Cabduul Nadaara. Muuqaalada TikTok-ta hadda arkaysaan idinma daawadsiin karno iyagoo muuqaal ahaan heestii oo ay dul saaran tahay sabab la xiriira inaan ixtiraamayno gabdhahaasi Soomaaliyeed ee magacyadooda ku jiro. Waana mahadsantiin ee fadlan isha ku haya dhacdooyin muhiim ah oo ka dhaca social media-han ayaan halkan soo gelin doonaa. Fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduul Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. Waad ku mahadsantiin.